بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ولا ليال وهبين كأني أفراد كل علميات كأني لبي طبناد إن كسر مجال جروه مساجد كهدى ويعلموا إن لو ذاقين إن خير كافرها بدن mar walba ilaahay waa inaan ka barna subxaanahu wa tacaala inuu ku anfaco khayrkaas ikhlaasna inoo geliyo iyagana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro sideeni fiicnayd ayaynu insha allahu tacaala u faa'iidaysan doonaa haddii ilaahay idmo. guddiga masjidka iyo howlwadannada nadwadu waxay codsanayaan nadaamintaas iyo hanaanka wacan ee inoo wadaan inaynu tixgelino insha allah. qaybta koowaad waa sideeni caadiga ahayd oo waa nadwada haddii ilaahay idmo muxaadarada. qaybta labaadna waa su'aalihii aan culimada weydiin jirnay insha allah. waxaan rabaa inaan codsi hormariyo waxaana soo gaaraya culimo codsiyo fara badan dad badan oo dadka xanuunsan yahay qaarkood awlaadda raba in loogu duceeyo insha allah. markay muxaadaradu inoo gabagabowdo oo kulanku inoo dhammaado culimmada codsigaas ayaa laga codsanayaa inay soo duceeyaan dadka howlaha badan iyo baahiyaha badan leh. sheekh mukhtaar axmed faarax oo caawinoo ku qoran ayaan si toosa ugu soo dhoweynayaa insha allah. sheekh kusoo dhow baaraka allahu fiik. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال سيدا عوان كسر كم مقطع درسك محاضرة نعاوة يكسب سنتهي عوان كيسو وحوية الحضارة الإسلامية ودورها في تحقيق الأمن الصحي والغذائي. حضارة إسلامك هي كالنت أي كلهاي حقيقينت بدقبك عافمات هي ميدك هنقولي لرضبا شعارك هي هالكوديجين درسيجين إن شاء الله تعالى وحنقضنا حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. صدح قضب قفك أدونك كهرة قد قبع في ماض إيو أمني قود إيو بدقبهم قري أدون أردن قعنتو كهيستا intaa wixii ka badan oo uu raadiyo waa ziyaado iyo fadl ilaahi subhanahu wa ta'ala laakiin adduun asaasiyaadkiisa waa haystaa. mawduucu marka sida aad aragtaan wuxuu farac ka yahay ciwaanka guud oo nadwada oo ah inuu islaamku yahay manhaj shaamil ah oo dhammaystiran oo dhammaan nolosha qaybaheeda kala duwan mid adduun iyo mid aakhiraba koobaya. laga hadlay habeenka hore caqiidada iyo amalka waxa ku xigay diinta tan iyo khasaa'ista ay leedahay iyo waxa ay la gaar tahay cilmiga iyo muhiimadda uu leeyahay iyo sida islaamku u qiimeeyay nolosha qaybaheeda kala duwan oo sida caafimaadkii iyo maxaan ku raahday hungurigii iyo wixii la midka ah kaalinta ay islaamku dhigay iyo mawaadiicda ka sii dambeeya. macnaheedu waxay suuro ka bixinaysaa islaamka iyo sida uu yahay diin shaamil ah oo nolosha aadanaha wixii ay u baahan tahay mid adduuniya mid aakhira aan midna dhaafin. sida aad ka aragtaan darsigu saddex mixwar ayuu ka kooban yahay. midka koobaad waa xadaara islaamiya bal si kooban inaynu u sheegno maadaama eraygu uu yahay eray carabi ah. amnu sixi حضارة الإسلامية وحي أي كقبطي بدقبك عافماتك بالشدي قادتي دينتان محي أسو كردسي حي كلاهدش إيا كانهم قرق أو غذائي قاهي إيا ذا النفط يدو دينتان محي بالشدى النفط يدو أي كلاهدش ujeedooyinka aan darsiga ka leenahay muhiimadu waa inaynu fahamno bal xadaarada islaamka oo aynu qaybta ka nahay oo aynu ku abtirsanno meesha ay gaarsiisay amniga sixiga iyo kan qidaayiga shareecada islaamka iyo diinta tan maxaasinteeda ugu wanaagsan inaynu wuxuun ka tilmaano say inuu ku noqoto halbeeg aynu ka duulno
oo aynu ku sargoyno nolosheenna oo aynu islaamkeennii hore iyo xadaaradeennii aynu ugu xirnaanno lan yasluxa aakhira haadihi اlummati ilaa maa saluxa awaluha ummaddan wixii ay horay ku hagaagtay baa dibna hagaaggeedu uu ku jiraa imaamu maalik calayhi raxmatullah saas darteed ma ahin ummad daba go'ane meel baynu leenahay inuu ku hiranno hiraalkaas oo inaynaan ka habaabin xadaara alislaamiya walaalayaal waxaa looga jeedaa sida aan ku arkay culammada kutubta xadaara alislaamiya wax ka qora waxay yidhaahdeen wamaa jaaءa bihi اlislaamu lilbashariyati min qiyamin wamabaadi'in waqawaacidin lilmudiyi qudban naxwa sha'ni اlmurtafic wاlxayaati الsaamiyati اlfudlى وبالتالي التقدم والتطور في الجوانب المادية والمعنوية التي تسهل على الإنسان حياته وتنظيمه ودين تتنوحي أي لتني أفكار إيا مبادئ إيا قيم إيا هبدقا إيا وحكستهر مرء الدنيا مد آخرة بقى أيها اللي يرى هذا سن رش هذا الدنيا تيدا آخرة أيها قاكته علماء مركي كهضليان حضارة الإسلامية قيبي وقيبيان لكن لبدا قيبض أقوم مهم سن ayaan ishaaraya maadaama waqtigu uu kooban yahay mowduucuna uu ballaaran yahay marka waxaan isku dayayaa intii aan soo koobi karo inaan soo ururiyo xadaara alislaamiya asiila waa tan koobaad oo ah wixii ay la timi diinta tani mabaadi iyo afkaar qiyam caqiido siyaasad dhaqaale tarbiya qadaa wax allaale iyo wixii andimadeeda iyo mabaadideeda ka mid ah oo ay diinta tani la timi ayaa xadaaro la yidhaahdaa waxaa kaloo jirta xadaaratu taariikh oo ah intii dowladood ee soo maray diinta tan ee soo hoggaamiyey wixii ay aadanaha u soo kordhiyeen oo horumar ah hadday tahay sanaaco hadday tahay tacliim hadday tahay arrimo bulsho hadday tahay culuum kala duwan oo mid sharci ay horumariyeen iyo mid xayaato oo ay horumariyeen labada dhinac ayaa ugu muhiimsan waxaa soo raaci kara wixii ay ka dheegatay xadaaraad kale oo kadibna ay islaamka uga faa'iidaysay xadaaradan islaamiga ahi runtii waxyaalaha ay kaga duwan tahay xadaaraadka kale ee adduunka soo maray waa xadaarad ka duulaysa iimaan iyo alla aqoon iyo in ilaahay lagu xiran yahay oo akhlaaq iyo qiyam ku salaysan oo aan dadka dhiigooda iyo hantidooda iyo qiyamkooda aan xadaaradooda ku faafinayne ku faafinaysa iimaan iyo anshax wanaagsan waa xadaarad insaaniyad iyo bani aadannimo ay ku dheehan tahay oo cilmigeeda aadanaha oo dhan xadaaradeeda uga faa'iidaynaysa waa xadaaratu micdaa waa mid wax bixinaysa oo caalamka oo dhan wixii ay ka faa'iidaysteen waxay ahayd xadaara alislaamiya culuumta ay ibtikaartay ma jirin wax u xaniban maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala ba risaaladan iyo diintanba ugu talagalay aadanuhu inay ku hagaagaan saas darteed ma ahayn wax xaniban oo qowmiyaad gaara ama dad gaara u xaniban sida xadaaraadka adduunka maanta ka jira oo aan bilaashka ahayn oo qaybahooda qashinka ah oo luuqadooda iyo dhaqankooda xun baa laga yaabaa inay ummadaha ku fardiyaan laakiin inta miidda ah oo culuumta iyo sanaacada iyo ay dib ula haraan taasi xadaaradani ma lahayn ilaa kayri daalika iyo tilmaamo kaloo aad u fara badan ayay xadaaradaasi leedahay marka si kooban xadaaradda noocaas ah ee aadanaha soo martay ilaa yowmina haadaana jirta maxay xaqiijisay labada kaalimood oo kale inoo soo socda mixwarka labaad waa taxqiiqu اlamni الصixi fi اlxadaara alislaamiya الحضارة الإسلامية الأمن الصحي maxay ka qabat أمن الصحي waxaan uga jeednaa waxa kala jira saxa الأمن الطبي iyo الأمن الصحي ama صحة iyo طب ayaa kala jira waa laba cilmi oo kala duwan cilmiga صحيga ahi waa cilmiga guud oo ka hadla bulshada iyo fayaqabkeeda iyo caafimaadkeeda guud iyo maraakisteeda صحيga iyo siyaasaadka sixiga ee lala isticmaalayo iyo waxa la rabo bulshada in caafimaad ahaan ay isaga ilaaliso iyo waxa la rabo inay u samayso hakada laakiin tibbigu wuxuu ka hadlaa cilmigii wax lagu daweyn lahaa iyo qofkii la daweyn lahaa sida loo daweynayo marka tibbigu wuxuu farac ka yahay cilmiga sixiga saas darteed baa waxaad ku aragtaan wasaaratu sixa iyadoo loo bixiyo ee aan loo bixin wasaaratu tibbi limaada maxaa dhacay
waxa la rabaa in ay ka hadasho ama ay qabato shaqada weyn ee ballaaran saas darteed sixigaasi iyo caafimaadkaas noocaas ah weeye aragtida aan ka hadlaynaaye dhakhtarnimo iyo wixii ku saabsan ma aha sida darsiga laga yaabo dadka qaarkiin ay u fahmaan haddaba xadaaradan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nebiyullaahi muxamed gacmihiisa uu ku bilaabay oo sabab isagu u ahaa ee diintan bidaayadeediiba la bilaabatay waxaan isweydiin la wadciga uu ku soo baxay nebi moxamed sidee ahaa jasiira alcarabiya iyo deegaanka carbeed ee laga soo saaray waxay ahaayeen dad iska xoolo dhaqata ah reer miyi ah meelaha qaarkood beeraley ah dabato qaarkood iska yihiin culuumtan kale oo dhan siday uga qaawanaayeen bay cilmiga naftiisa caafimaadkaana faqri ugu qabeen ma jirin wax badan oo ay ka haysteen marka laga reebo waxyaalo kooban oo ah in talooyin dadka lagu daweeyo ama dawooyin dhirta iyo xayawaanka laga sameeyey ay dadka ku daweeyaan ama sidoo kale waxyaalo kale oo sixir iyo talaasiim iyo wax la xiriira iyo xirsiyo iyo waxyaalaha noocaas in lagu daweeyo inaha un mooyaane wax badan oo kale ma ooleyn bulshada iyo mujtamacaas faqriga ka ah dhanka sixiga ah iyo dhanka caafimaadka iyo tibbiga gaar ahaantiisaba ayaa nebi moxamed laga soo dhex saaray xadaaradda salawaatullaahi wasalaamuhu calayh xadaaraddaas markii uu nebigu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi oo la keenay waxa aad ka dheehanaysaa inay qawaacid ku fadhido waa weyn qaacidooyinka ay ku fadhido waxaa ka mid ah alamnu sixi waxaa lagu daray min daruuriyaati alkhams sababta oo ah nafta bani aadamka in la ilaaliyo qawaacidda diinta tanu ay ilaalisay bay ka mid tahay sidoo kale caqliga bani aadamka in la ilaaliyana waa qawaacidda diinta tanu ay ilaalisay labadoodana waxaa la ilaalinayaa waa caafimaadkooda iyo jiritaankooda maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib lidaalika saas darteed nafta maadaama la yidhi ha la ilaaliyo wax kastoo nafta ilaalinteeda lagu ilaalinayana isaguna wuxuu noqonayaa mustawa ahaan iyo la martabad sidoo kale waxaad arkaysaa islaamku inuu ku daray sixada nicmooyinka waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aadanaha ku minaystay xadiidka aynu hadda soo maraynay ee uu nebigu salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi uu yidhi qofkii jir ahaanna caafimaad u qaba amnina haysta hungurina haysta adduunkoo dhan in loo koobay ayuu ka dhigan yahay waa xadiid tirmidi iyo ibnu maaja ay warinayaan min xadiidi cabdillaahi ibnu mixsan waana xasan sida shaykhulalbaani uu tilmaamayo sidoo kale nebigu salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wuxuu tilmaamay inuu caafimaadku ka mid yahay nicmooyinka dadku ay ku degan yihiin asixatu walfaraaq saasuu nebigu tilmaamayay salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo aysan dhab uga faa'iidaysan waxaa ka mid ah waxyaalaha ahmiyadda shareecadu ay sixada siisay aad ka dareemayso nusuus aad u fara badan oo qur'aan iyo axaadiida baa ku soo arooray oo sixada dadka iyo caafimaad qabka iyo badqabka ka hadlaya gabadha la yidhaahdo asmaa yuusuf axmed aalu dayaab oo qortay kitaab alricaayatu asixiya waatibiya fi alqarni alawal alhijri waxa ay runtii gabadhaas reer imaaraad ay soo ururisay kitaabkeedaas oo ay ixsaa'iye ku samaysay axaadiidta nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi ka soo aroortay ee ka hadlaysa caafimaadka gaar ahaan sixada aan hadda ka hadlayno markaasay waxa ay u qaybisay qaybo waxay tidhi axaadiidta dhiirigelisay in la sameeyo riyaadada iyo jirka in la dhisaayo ilaa 7 xadiid ayaa ka soo arooray axaadiidta cuntooyinka iyo cabitaanada caafimaadka qofka kor u qaadaya waxaa nebiga ka soo arooray ilaa 8 xadiid axaadiidta caruurta iyo ricaayadooda iyo nafta ricaayadeeda iyo dadka xanuunsan ricaayadooda ka hadlaya ilaa 9 xadiid bay tilmaantay sidoo kale axaadiidta bii'ada iyo deegaanka iyo jidadka iyo biyaha in la nadiifiyo oo nadaafadooda la ilaaliyo waxaa ka soo arooray bay tiri 14 xadiid axaadiidta ka hadashay nadaafadda guud iyo cudurrada faafa iyo amraadda khatarta ah nafteeda ilaa 15 xadiid ayaa ku soo arooray bay tiri axaadiidta ka hadlaysa nadaafadda gacmaha iyo jirka iyo ilkaha
iyagana 18 xadiis ayay tilmaantay axaadiista ka hadlaysa cuntooyinka iyo cabitaanada waxtarka leh oo jirka waxtaraya oo caafimaadka kor u qaadaya iyadana 29 xadiis marka la isu geeyo ilaa 100 xadiis way boqolka xadiisi kulli waxay ka hadlayaan sixada insaanka iyo sida loo ilaalin lahaa waana waxa sixada caamka ama public health la yiraahdo oo ah qof bulshadan in laga waardiyeeyo oo laga ilaaliyo xanuunku in ay hoy u noqdaan inay u nuglaadaan inuu xanuunku ku dhici karo saas darteed alwiqaayatu khayru min alcilaaj intii hadhow la daweyn lahaa waa in hadda laga ilaaliyo xanuunka waxaa ka mid ah ihtimaamka shareecadu ay siisay nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi inuu amray in la isdaweeyo oo markii nabiga la weydiiyey muxuu yidhi isdaweeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jiro cudur uusan dawo u soo dejin marka laga reebo waa yeelnimada waxaa ka mid ah shareecadu sida ay u danaysay sixada oo aad ka arkaysaa attawaasun bayna xaajiyaati alruuxi wa xaajiyaati aljasad jirku waxa uu u baahan yahay iyo naftu waxa ay u baahan tahay waa la isu dheelitiray waxaana kuugu daliila nabigu salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi xadiidka من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيحين كسغا أو نبأ كل إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه عدك استحق هذا نفط هذا أهلكاغا شركاغا كل حق بيليه وتؤدي ذي نمنك يري هبين إيام مالنبا أما وصومينا أما صلاة بأنو تاقنانينا مايا waxaad samaysaa marna seexo mar tuko marba maxaan ku raahdaa tawaazun baa la rabaa ee lama rabo waxa aan isu dheelitirnayn طيب waxaad arkaysaa culimada islaamku intooda badani kutubta axaadiista iyo fiqhigaahi kitaabka ay ku bilaabaan waa kitaabu tahaara limaada tahaaradana waxaa la isku raacsan yahay ama nadaafa haddaan ciwaanka kor u qaadno in ay tahay gundhiga caafimaadka كندق عافماتك إني تهي marka waxay ku tusaysaa ihtimaamka sharciga ilaahay uu siiyay iyo hatta culimada islaamku siday u dareemayeen muhiimada ay leedahay nabigu salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi markii ilaahay risaalada u soo dhiibayba nusuusta faraha badan aan tilmaanay sida ay tilmaameysaba waxyaaluhu isticmaalay waxa kamid ah mujtamaca in la tawjiihiyo oo mujtamaca lagu baraarujiyo muhiimada ay sixadu ay leedahay oo laga badiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala hatta caafimaadka nabiga sallallahu wa sallam alayhi sallallahu al-aafiya wal yaqin fama u'tiya ahad ba'da al-yaqin shay'an khayran min al-aafiya majru ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta yaqiinta uu qofku ka haysto kadib wax caafimaadka ka qiimo badan ilaahay qofka ma siin saas darteed ilaahay weydiista marka caafiyadaasi wa as-salamatu min al-asqami wal balaa sida ay manaawi iyo culimada kale ay sheegayaan qeyrkood waxa kamid ah al-hathu ala talab al-ilmi sidoo kale ilmu siha wa ilmu tibbi uu ku jiro oo nabiga sallallahu wa sallam alayhi ma anzala lahu da'an illa anzala lahu shifa halayna culimadu xadiidka waxa toos uga muuqata in la raadiyo cudur kasta caafimaadkiisa oo hadii qofka loo sheegay ma jiro cuduran caafimaad lahayn cidii marka ahlul himam kaahi waxay isleeyihiin waa in cudurradaas dawadaas la sheegay waa in loo soo helaa waxa kamid ah nabiga sallallahu wa sallam alayhi inuu xoreeyay oo cilmiga sixigahi uu ka xoreeyay khuraafaadkii iyo shacwadadii iyo dhaqamadii jaahiliga ee aqeeda darrada ku saleysnaayay dadka lagu jahwareerin jiray oran jiray walidu ku daweynaya waxa kamid ah al-ihtidaadu fi at-ta'ami wash-sharab nabiga sallallahu wa sallam alayhi bani aadamku mabuuxiyo weel ka shar badan calaash marka saddex u qaybi qayb cunta iyo qayb hawa iyo qayb waxaan ku raahday neefsiga xadiidkaas tirmidhi iyo nasaa'i ayaa wariyay ibn maajah iyo qeyrkoodba waana xadiid saxiixa waxa kamid ah soonka waxyaalaha sixada caamka ahi ka qayb qaata oo nabigu sallallahu wa sallam alayhi uu soomi jiray ummadiisana waa ku dhiirigeliyay إلهنا القرآن كيسا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وحكمنا نظافة هي طهارة سيدا لوك بريدتك هي وحيالها الله حريرة وصلاة دي زكاة محان كرة دايين
xajkii iyo ma ansaxayaan haddayan tahaaro lahayn oo salaadiina ma ansaxayso xajkiina arkaanta ugu muhiimsan tawaafka ka mid ah tahaaro taama haddii uusan qofku aysan qabinna ma ansaxay janaabadu ay qofka ku dhacdo xaydka oo hakada waxa ka mid ah gacmaha in la dhaqo oo saan sheegin nusuus ay ku soo aroortay guryaha iyo dharka iyo deegaamada iyo kulli in laga ilaaliyo wabiyada iyo meelaha laga cabayo iyo meelaha la harsado iyo dariiqyada iyo kulli nadaafadooda in la ilaaliyo oo de waxaas nusuus fara badan baa ku soo aroortay oo aan ka soo urursanayno طيب ولذلك أي علماء مركي كهض ليان أهمية نظافة أي كتل ماميان دين تنبا إنه يتهي الدين النظافة والطهارة دكتور يوسف القرضاوي وحاول ليه والحقيقة أن موقف الإسلام من الصحة والوقاية وسلامة الأبدان موقف لا نظير له في أي دين من الأديان فالنظافة فيه عبادة وقربة بل فريضة من فرائضه مجره ماشا اي نكتي يسير اهتمام اسيسي دينتان والنظافة دين هري اسو دكتي او سيدا لمدا اهتمام اسيسي بل وحيبة تحيبة فريضة اي عبادة اي واجب من الواجبات اي نقل يسابه لي يا شيخ وحكم اذا وحيالها النبي وبري وضدك وكل رجلين اي رياضة واحجر بسكة iyo in dadku ay maxaan ku raahday jirkooda dhisaan المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف sidoo kale ilaahay quraankiisa ay ku soo aroortay waa a'iddu lahum mastata'tu min quwwa nabiguna uu ku tafsiiray quwada in ramyiga iyo toogta iyo dhugtanka looga jeedo xakamida fardafuulnimada iyo dabaasha iyo mubaarazada iyo ganida iyo waxaas oo dhami waa waxyaalo kulli jirka bini aadamka dhisay حكمنا النبي وحياله وصحة عامك runtii ka qabtay الحجر الصحي oo in hadii cudur rafaafa ay yimaadaan dadka ay ku dhaco la karantiino hatta hadii magaalooyin yihiin ama ashqaas oo taa'un hadii aad maqashaan inuu magaalo galay ida sami'tum bit-taa'un bi-ard fala tadkhuluha wa ida waqa'a bi-ard wa antum biha fala takhruju minha ka bixinina hadith Usama ibn Zayd maxaan ku raahday saxiixaynka ku sugnaa waxay ku tusaysaa marka ummad dhan baa la karantiinay xal loomana gali karo iyana ma soo bixi karaan shakhsi markuu ku dhacana la yuridanna mumridun ala musih wax caafimaad qaba noola caafimaad qaba mid jiran lagu dari karo dad iyo dunya ku rabo ha ahaade lama ogola sababtoo badqabka iyo caafimaadka iyo sixada ayaa la ilaalinaya sixa nafsaaniya hatta nafti bani aadamka ayaa waxa lagu tarbiyaynayaa qiyam iyo akhlaaq iyo habdhaqan si ay u hagaagto ayaa dadkaysa dhinaca kalena adkaar iyo adciye iyo awraad iyo wirdi in la iskaga gaashaamo xataa waxyaalaha kale ee ku iman kara inahaas oo dhanbe waxaad arkaysaa nabigu salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi in uu ummadda uu ku baraarujinayay xilligaas marka waqtigii nabiga iyo khulafada caafimaadka iyo sixada aad baa loo runtii loogu dadaalay waxaadna arkaysaa muhiimadda la siiyey ayaad aad u dareemaysaa dad badan oo atibba ah ayaa waqtigii nabiga jiray oo caafimaadku inuu muhiim ahaa baad arkaysaa oo at-tabiib ibn hilyam iyo al-harith ibn kalada iyo al-harith ibn ka'ab iyo faatima binti muhammad iyo kulli waxay ahaayeen dad wax daweeya oo waqtigaas runtii waxay ahayd marxaladii طبيga naftiisu uu bilowday ayay ahayd الدولة الأموية marka hadaan inta kaga gudubno muqtadafaadkaas waqtigii nabiga iyo saxaabada waxaan u jeedaa khilaafa rashida wixii laga qabtay oo marxalad ilaa 41 sano koob iyo 40 sano ay noqonaysaa dawladii umawiyya dawlad umawiyya iyadu marka ricaayadii sixiga ahayd maxay ku soo kordhisay oo waliba 41 ilaa 132 jirtay waxay ku soo kordhisay number 1 illa nadaafada deegaanka aad xoog loo saaray oo halkii laga sii waday oo waxa ay wariyaan culimada taariikhda Suleymaan ibn Abdul Malik oo kale in uu amar ku bixiyay al-masarif al-maa'iyya meelaha biyaha dadku ay ka cabaan iyo meelaha biyuhu ay maraan iyo meelaha ay ku qulqulaan in la nadiifiyo say dadku biyo nadiif ah u helaan biyaha nadiifka ahna waxyaalaha muhiimadda ugu fadhiyo way
حكلو كمدا إن لابد ذلك طرق إيه مجالوين كنظافة دار تصالح عن سليمان أو كلا وحنا أمر والجيسي بصرائي كوفائي مدحنا أوجا هنجري واختيار كلا الدون زياد بن أبيه إن قف كستأد دجن مجال ذاس وكوكلف أو كوكسبه جوري جيسا إيه حريره سئل نظيفيه شوف ومد هذا اللي أكلاه جوري جيسا إيه أنت أجار كيسا بينه نظيفيه هدي مجال ذا مرك قف كست جوري جيسا إيه حريره سئل نظيفيه محاسب حيسا مجال نظيفة أي صوب حيس وحكم إذا وعي الصحي جاهي إن كرر قاضي ورنتي أمد لجو برار الجري وحكم إذا حبسيدي إن دتك كجرة حتى أي محاكورة هذا عافمات كوضة أي كفكريين وأي سمينيين ودتك محتصبين تاعي أي كوريين قف كستوع كجرة حبسك عافمات كيسة إنه قرح هليه إنه بر وناكسن قبه إن أول الدوائي عافمات كيسو سيدي هي نلاشي سيديته حكتو زي مركب سيد أي وجود ذلك جارهان وقتي عمر بن عبد العزيز أكرم حتى حيواناتك أي سوء رورين كتب التاريخ إن أي كد ذلين سحض عافماتكم طيب وحيكد ذلك وعي قلنت كصابصا إن حتى حيوانك يضد عذر أي كلا قادي كران سل لك الفقيه ولا كلا ديريه وحابلابتي وقتها استجاه فكرة اللي هيد إلا أساسه ما جعي برك الله أقول جري عصبتها الله أو البيمارسانات أو المستشفيات وحيرهدان وحيصوب بلابتي وقتها النبي فكرة وخيمة دي سعد بن معاذ لقد ويني مساجد كتالي لكن حضنا وحا تطورتي معاوية وحكم بلابي كذبنا والوليد بن عبد الملك أيام بلابي الوليد بن عبد الملك أيام بلابي ووقت قصرونتي وحوين كقبت عمر بن عبد العزيز نفتي سوء ملاجئ ضدك حنون سنقاء أيوب بلابي وحا تفصيل كأد كهلي كتان تاريخ ذا عصبة الله إيه بيرماسانات لأن وحكا قري كتاب كعمارة المجمعات والمباني الطبية البيمارسانات في الإسلام عبد الوهاب مصطفى الظاهر هي كتاب ككلاء تاريخ البيمارسانات في الإسلام أحمد عيسى أوليه تقي الدين المقريزي وحوليه هي أول من بنى البيمارستان في الإسلام ودار المرضى الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي سنة 88 هجرية سنة كي سدادات هجرية أيوب بلابي نكي كوباد وفضلك لها إنه حرون عاص أساسه أيها كذبنا وحي أي كقبن كرين أو تطويرين أي سي سمية هذين أسر قدبنا وكسر كقابسنا عسرك عباسك ها وبقول صدن يلبو إلى لح بقول يكنتن يلح دي هجرية شري وتضاب بقول يكنتن إلى كل بقول كنتن يسدد ميلادك وقت كوبيغان يقولوا واحد بلابين مجتمع عاص وعي قد يستحق هاي بسان واحد بلابين عصبتها الذي إلا محاكورة هذاي لبضيو وآذ الله فرو عصبتها الذي وأي لبقى يبادو قيبيا مركا وحلو يقانه بمارستانات متنقلة هي قوة ثابتة عصبتها لبقرقورة oo xujaajta iyo dadka jihaadka galaya iyo safarleyda iyo tuulooyinka iyo baadiyaha iyo kullu ku wareega iyo kuwa magaalooyinka waaweyn laga asaasay dayib saas darteed bay waxay lahaayeen sida ay warinayeen kitaabada aan soo sheegay iyo kutubta taariikhda ee xadaarada islaamiga wax ka qoray intuba sida ay daqiiq u ahaayeen cusbitaaladaas waxay lahaayeen qaybahoodii indhaha kuwii qaliinka kuwii kabitaanka kuwii xanuunada caloosha kuwii xanuunada kala duwan oo dhan markaas dadka xanuunsan xataa oo jiifa bukaanka cuntadoodii jiifkoodii oo maxaan ku raad qofna aan lacag laga qaaday بمعنى عافمات بلاش أن قفنا $1 laga qaaday oo nooc walba haday tahay dhaqaatiiri haday tahay bukaani haday tahay shaqaalaba kharashkooda la qabo hatta dawada dhaqaatiirtu ay sameeyeen iyada oo waliba laga yaabo saad u fakaraysaan inay tahay dawo dhir iyo laga sameeyay ay tahay dawo rasmi ah oo shaybaar rasmi ah maraya
oo sida maanta macaayirta wax lagu sameeyo iyo mid ka sii daqiiqsan la marinayo طيب mustashfayaadka waaweyn ee la sameeyey baqdaad iyo dimashq iyo maxaan ku rahday qaahira iyo baa laga sameeyey waxay leeyihiin magaalada qurduba kaliya oo maxaan ku rahday andalus konton cisbitaal wax ka badan baa ku yaalay waqtiga halka magaalo cisbitaal waaweyn oo dadka walidaalika wuxuu leeyahay ninka la yiraahdo Joseph Garland ninka la yiraahdo markuu ka hadlayay kitaabkiisa qisatu tibbi وحيري أسس العرب عددا من المستشفيات الممتازة جعلوها مراكز لدراسة الطب وعلاج المرضى كأحدث المستشفيات أصبحت هذا أقول عسر سنمانت أي محاكو رهد بيلا مستواها ينبولي وقد بلغ عددها هذه المستشفيات موزعة بين أنحاء الإمبراطورية وإن كان أهمها مستشفيات بغداد والدمشق وقرطبة ومصر meelahaas oo dhan bay ku ugu muhiimsan ku yaaleen laakiin wuxuu tilmaamayaa ninkaas aan maxaan ku raahday muslimka ahayn in uu ay tahay ahdath mustashfayaat noocyada ugu casrisan kuwa u dhigma inay ahaayeen waxa kamid ah as-sihha al-aamma in mujtamaca laga fakiray oo ninka la oran jiray dhakhtarkii Sanad ibn Thabit oo tibbiga mas'uulka uga ahaa iyo cusbitaalada al-Muqtadir خليفة المقتدر مركو كهذا يوحي إن موضوع صناعتنا حفظ الصحة لا مداواة الأمراض وجد كي يقعدان دولة النهاية ما أهم بيردتك حنوصل إلا الدوية لكن وبلشدا بدقت كذا عافمات كإن لقى حضره ووحلقى قبطه صادرت يبقى مية مقالبة هذيك عافمات كلا جارسيني وحكم ده حيالها أركي صوصي وجود ذاليين إن خليفك عباسي أها مقتدر لا بقول سكاشن يشن وقت جاء إسقى ويرينك سناد مثابت أو لي بقف عن الامتحان اختار من نقولك سيد اللي فكر يدك عافماتكم ما دعي كرتوا لي مكاسة الحصرية بغداد كليه سداد بقول يلحدن يطور اختار بالغها لي marka laga reebo dhakhaatiirta waaweyn oo daraasi iyo rag la midka ah waaweyna oo anigu aan u baahnayn 800 iyo intaas ee dhakhtar ayaa marka imtixaan la maray office markaas culimada qaarkood waxa ay alifeen kutub la yiraahdo imtixaanul atibba kutub imtixaan laga qaado dhakhaatiirta sida imtixaanka looga qaadayo ba kutub laga alif sida dhakhtarkii weynaa kitaabkii uu alifay oo الطبيب الكبير حنين بن إسحاق العبادي وحضر كيسا إن حتى كتب أي كقران وحلو يقانوا الصحة العامة ونك اللي يراهده ابن بطلان كتاب يراهده تقويم الصحة وكقران سيدو كلام الفيلسوف الكندي وحكقري رسالة وأقوم بحي رسالة في تدبير الأصحاء dadka caafimaadka qaba sida loo maareeyo oo looga ilaaliyo in xanuuna ay ku dhacaan inahaas oo dhanbi waa wax ku tusaya in ay caafimaadka iyo sida ay u dareynayeen dhakhaatiir waaweyn bay lahaayeen oo ay ka mid yihiin waqtiga aad garanaysan Muhammad ibn Zakariya Raasi waxa ka mid ah Amidul Jarah al-Arabiyya Abu Qasim az-Zahrawi waxa ka mid ah Ibn Sina waxa ka mid ah Ibn Nafis ragaas oo dhanbi waxa uu leeyahay أستاذ كقري الدكتور عبد الحميد عويس الحضارة الإسلامية وآفاق المستقبل وحلية كتب تراثي وحاي مرجعوا هايين رقاص إيجاهي أوروبا جامعات كودة وقوة وين على العصور الوسطى العصور الوسطى وحلية هذا قرنك الشنات إلى قرنك الشنية طبنات أوروبا وقت قاسم الله يقالنا العصور الوسطى إلى هذا وقت أفر قرني ميرها اللي قد شوق 5 قرني أي جامعات كودا أي مراجعكو أهايين waxay ku tusaysaa marka sida ay muhiim u ahaayeen waxaad arkaysaa marka nooca ay ahaayeen iyo qaabka ay u sidoo kale waxa isaga naftiisu wax ka qoray ragga iyaga ahi عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصبيعة أي إسقنا كتاب كقري إنها سمرك وحي كتوسيسا تاريخ ناس دول كسي دنبيي إسلام كسوحكم ما إنن قاري ما دام إن الوقت وهلي
lidaalika waxay ku tusaysaa sixada sida loo keergareeyey iyo mujtamaca sida loo ilaalinayay marka nidaamkan sixiga ee islaamka waa nidaam adcimadii iyo noocyadii xataa xaaraanta ahaa ee lagu xanuunsanayay sida baktigii iyo doofaarkii iyo dhiiggii xawda ahaa iyo waxaas oo dhan iyo suntii iyo waxaas oo dhan dadka u diiday waa caafimaad xataa u diidaya dadku inay iskaga xoogsadaan maxaan ku idhaahdaaye waa nidaam u diidaya dadku inay caafimaadka iskaga xoogsadaan man tadabbaba walam yakun biطibbi macruufan faasaaba nafsan famaa duunaha fahuwa daamin waa laga rabaa qofki intuu iskaga shaqaysto dadka irbada iskaga mudo ama dhir iska siiya ama wuxuu siiya isagoo aan aqoon u lahayn wixii u gaaro waa lagu leeyahay bay ku tusaysaa marka inahaasi waxa ay ku tusayaan sida ay muhiimadda ay u leedahay mawduuca isaga islaamku marka waa xadaarad noocaasa oo sixada insaanka sida uga fakartay oo qofka bani aadamkaahi inta lagu bixiyey inuusan xanuunsan waa wax badan ka badnayd inta lagu bixiyey in la daweeyo markuu xanuunsan ayay ku tusaysaa waxaad arkaysaa marka sida muxaadaradii sheekha xalay ku jirtaybaba cusuurtan dambe ee muslimiintu markii ay tacaaliintaa dayaceen oo ay iska noqdeen dad iska caajiziina in bahashu ay dhinaca kale u wareegtay oo xadaaradii iyo ilbaxnimadii iyo maxaanku idhaahdaayey aqoontii galbeedka bariga taallay adduunka galbeedka ay u wareegtay wax kalena maaha waa markii kuwaanuna ay ka faa'iidaysteen turaadkoodii iyo kutubtoodii iyo wixii la qoray bay iyaguna dadaalin innaguna aynu jiifsanno walidaalika ba waxaad arkaysaa waxaan akhriyey daraaso uu nashriyey mowqic la yidhaahdo nombio aana ka soo dheegtay jariirad la yidhaahdo sharq oo qatar ay leedahay 89 dowladood bay ku samaysay 2019 baa lagu sameeyey bal caafimaadkoodu siduu yahay number 1 waxa gashay dowlad yar oo Taiwan la yiraahdo oo aad taqaanaan oo China dhinaciisa ku taalo jasiirada Korea Januubiya iyo Japan iyo maxaan Austria iyo Denmark iyo Thailand iyo Spain iyo France dowladahaas 10 hore galay xilliga horena waad aragtaan oo bahasho ay bariga inoo ka shidnayd maanta aynu iska seexanana waxaad arkaysaa sida ay caafimaadku qoladii kale ina ka faa'iideysto ugu wareegay waxa laga qiimeeyaa marka dawladahaas ama meelaha biyaha nadiifka ee la cabayo asarfu sixi dadka sida qashinka iyo loogu sameeyo maxaan ku raahdaayay meelo qashinka iyo biyuhu ay ka dusaan roobka daa meelo u maro inaga waxa arkaysaan shawaaricdeen sida qashin ku yihiin marka roobku daana sida ay noqdaan baad arkaysaa mararka qaarkood magaalooyinka roobka ma jecla wax kale ma ahna waxa isbedelaya wadciga soo baxaya ba ka dhigaya u fiirso horeyna waad arkaysay wixii aynu ka soo sheekaynay sida ay ugu dadaaleen sidoo kale xukuumaadkaasu sida ay ugu dadaalaan dadka caafimaadka dadka ku cayaara oo qaladaadka ka sameeya sida u ciqaabaan waxa kamid ah ayilnaanta nafteeda bay qiimeynayeen bulshada buurnaantu ay ku badan tahay sigaarka iyo waxa kan la shido iyo waxaan daroogada la isticmaalo u fiirso markaas daraaso kale iyada nafteedu waxa ay tilmaamaysaa magaalooyinka ugu nadiifsan Calgary oo Canada ku taala iyo Luxembourg oo iyada nafteeda wadanka yarka ku taal iyo Zurich oo ku taala maxaa Switzerland iyo waa magaalooyinkii aan islaamka ahayn baa arkaysa inay ugu nadiifsan yihiin laakiin shalay shawaaricdeena ugu nadiifsana wax kalena ma ahan ee waxay ahayd dadaalka hadba lagu bixinay inahaas markaan khulaasada ku ururno qaybta aan kaga gudubno islaamku iyo sida uu sixada u maxaan ku raahdaayay ugu dadaalay oo mujtamaca looga dhisay waxaad arkaysaa inay tahay diin ka fakaraysaba oo culumteeda iyo caqiidadeeda iyo waajibaadkeeda iyo qiyamkeeda uu ku taagan yahay nadaafada iyo maxaan ku raahdaa iyo tahaara ayada inahaas haddaan kaga gudubno qaybta labaad ee al-amn al-ghidhaa oo ah guriga dadka maadaama ay labadu asaasi yihiin qofku markuu caafimaad helo gurigu u baahan yahay luquntu laqmadaan ma joogto ayay tiraahdaa Soomaalidu sababteed amn al-ghidaa'igu waxa ay ku tacriifisay hay'adda la yiraahdo al-amniya az-zaraaciya oo ay iska leedahay qaabisa baan u jeedaa faw ay yiraahdaan
إليك حصول كل فرد من أفراد المجتمع على حاجته من الغذاء السليم للنوعية الجيد بشكل مستقر حتى يتمكن من عيش حياته بشكل سليم. قفوا لبئنه حرام عمر وناكسن وكفلا وعافمات قبطان قربني قبل اللي يراهدوا الأستاذة سهيلة بالخير إذن رسالة أي كقرطين ومانشستر أي كديارسي الضوابط الأخلاقية في تحقيق الأمن الغذائي في الإسلام يضرب وحي تري ضمان استمرار تدفق المستوى المعتاد من الغذاء الحلال اللازم لاستهلاك المجتمع في أي فترة من الزمن سأسترتد إنك كان أيائنا قصية وكفي عنه سببتها عنتظر لهلي وإني نقطع عنت حلال حدنا تعريف كاللبضة كان ككوبا غذاء أما هنقرقوا ووحن نلشو أي كتاقنتهي وعنتظر إيا عبتان كبا حد النلوش آذنه ومجري كرتو وحضر كيسا قرآن بإله سبحانه وتعالى إنه آذ بحثه وكلمة الرزق هي مشتقات كذا بقول هي لباطن يصدح قرب القرآن كسوها طعام إيه شراب إيه أكل إيه مال إيه وحاصنا أنت يكسر ضرورين حدث ولا حرج حيث تصي سامر سيدا إسلامك غذاء إيه هنجريك إيه عايشك إيه وحلا عنية أهمية دوسيه ضدك وحكا قرأ وحيليهن أفر لنعبا لغاس فيريا أمن الغذائي كو وحورت إنه يحي متوفر مركي أفرت جانب لهلو أيها الأوران كرا أمن غذائي بأن لهلو كو نرشا وحل عنيا وإنه متوفر وحكفلا مقالدا وحكفلا أو راشنا وإنه صوقرا سيد يومي أما سيد بالله أما سيد سنوية وإنه صوقرا سيدو كلا هدينا مأمونية الغذاء وإنه يهي عنطو لا إسكوها اللين كرا أو نظيف أو بدقبته مثل عضي أما مد حن أما مد ليدة وين ينهي وحابير هذا الصدح إمكانية الحصول عليه تدك إليه هلي كران قفوا البوائه إبسان كران تبرتيس انتو إبسان يواباب لكن قف كستاي إيجاب كيسا وحا أجرى هنقولي كفلا وإنه أقوين كران مركز الله أولا كران أنه غذائي باجر قضب كأفراد الله وحي إرادة على الاستقرار وحان وإنه شوكتيه لكن مقالنا هذه السنة كان 20 مليون صاقلة سنة كدبنا وحلقوايا معنى أن الغذائية مجروب طيب أهمية الإسلام كسيي خلينا أقحض الله إلهينا مالك وحكها كت المامي سبحانه وتعالى إنه يهي قياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام مرادك أدونك نرش استوى وحو كتاقيا إنه يهي حلبوا دري مالك إلى لنتيسو ضروريات الخمس رزقك إلهي وحو كت المامي نعموينك أبوا وين وإلهي وآذنه أغم من نتشكتي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أي حقيقين كرتاي الأمن الغذائي لابد نعبا كفيرينينا دينعوا مجتمع مسؤولية باصارا سي أمن الغذائي هو حقيقه دينعنا وحكوماتك إيه سلطاتك لابد بأن تصاليات أي نصو قادم دونا إيه نصوص طيب عملك وحكم ده وحيالها وكو حقيقه بكرا عملك أما الشقة تكون شقيستان خري أي درسي كوباد أي اللوطات مركوان كقد بيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحاي وريال كان إذا رأى غلاما فأعجبه سأل هل له حرفة فقيل له لا قال سقط من عيني عمر بن الخطاب مركو ننفي عن أركه وبوه wuxuu oran jiray warinkan ima shaqaystaayo xirfad iyo aqoon ku shaqaysto maleeyay hadii la yiraahdo maya wuxuu leeyahay ninkaas waa iga dhintay in qiimo leh ma saas darteed da'yarta faraha badan oo guryaha iska dhooban oo maamooyinka canjeerada la cunay ogaada macno weyn arrinkaasi ma waxay u baahan tahay dadku in ay noqdaan dad nool oo macno leh oo shaqaysta oo wax kasta ha hele wuxuu soo guran kara طيب وحكم إذا الإنتاج المحلي دتكو وحصوصارك بدها إن لحوجيه ودما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة خاربا وري وحكتو سيسا سيدا اللي يقول لي رجلين يدين يقول لي رجلين يسو
in wax la beerto in wax la soo saaro in intaaj maxalli ah la sameeyo waxa kamid ah waxyaalaha mujtamaca u yaala ama dhanka mujtamaca laga rabo inay amnul ghidaa'iga ay ku sameeyaan tijaarada iyo istithmaarki oo nabigu markuu waxyaalaha ugu wanaagsan oo la cuno uu ka hadlayay waxa uu yiri amalu rajuli bi yadihi wa kullu bay'in mabruur wa bay'aasuna isaguna waxaad arkaysaa saxaabadii nabiga muhaajiriintana shaqooyinkooda ugu badani tijaarada ahayd ansaarna shaqooyinkooda ugu badani ziraacada ahayd iyo beeraha waxaad arkaysaa sida loo laysu kamilay ihyaa'ul mawaad in dhulka nool la camiro oo la beero oo dad la siiyo oo la dego oo waxay nooc bay ka noqonaysaa iyada ruuxeed waxa kamid ah awqaaf in la sameeyo oo iyada ruuxeedu waxay qayb ka noqonaysaa amnul ghidaa'iga وإلهي سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث محاكم ذا صدقة جارية صدقة جارية جابر بن عبد الله بن حليه ما أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا حبس من ماله صدقة موقوفة أبو بكر الخصاف أي كتاب كيس أحكام الأوقاف كوري ابن القدامى نفتيسنا في المغرب كوري وحضر كيسا مركا إن مهمة أي لحيد وصحابة النبي قف أود ولا مجرين إن وقفن كرو إلا وحبو وقفني صومال وحيالها إن أنا قام يكمل وقف وحكم ذا إلا التطبيقية واجبات حقوق مالك إلهي شرع إلهي سبحانه وتعالى وجدي زكدي با كم ذا صوم حكم ذا حق الضيف حق المسكين ابن السبيل كي درس كي وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل إلهي سبحانه وتعالى ويسقله وحكم ذا أضحيتي حكم ذا عقيقتي وغلشتي وحكم ذا صدقتي وحكم ذا هبدي وحكم ذا هديتي وحاس أو دمي أمن الغذائي قيب قادنيا انت هاس أو مسادر أو قفك كسو قلي كروي وحكم ذا حلاشة إلا قو قاب صدق قريب الله تلمامي وحكم ذا حسن التصرف أما وحي يقالنا ترشيد الاستهلاك الغذائي انسفي عن وحلوعنه ومقالة أن هدي بشيب أي سوق لان 2 مليون أو كيلو أو راشنة هدي كفلان تهي بالأم الله أما صدح هدي دادكو أي قلوب خصانة وبهاشا لغو عيارة وحلقا يابا مددي وحكا يرين يكفي الله ساس درتين صح معه إلهي مركز حلية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وحكم ذا رعاية الأخلاقية حقا إن كذلك المسلمين تأينا إلاليان ويكمل تيقشكي حارانتي وحين إسكندايان وضدك عنتونا أكسن الله كانوا وحكم ذا بيع إنسيفي عن الله نحصر وحكم ذا احتكارك إلا إسك إلالية وحي صوت لي مقالة ذا حديدتك قاركي انتي حسايستان هذا ولا سوغان فرصة waxay ku noqonaysaa dadkii bay dib ku tahay amnul ghidaa'i bay waxay ku tahay weerar la yahtakiru illa khati ayu leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam hadith sahih muslim warina waxa kamida adamu istiradi badaa'i ghayr salihah badaa'i ghayr salihah badeecooyin aan hagaagsanayn in dadka loo keeno waxay kamid tahay waxyaalaha amnul ghidaa'iga ku ahduulaan oo ama dhacday ama liidata ama xun waylun lil mudaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين تطفيفك معها بالكيل كلية معها لكن كما وكيفا بالغها طيعهان إيا تراهان لبضب هذا تطفيف أصميسه وهذا عانو كون بدي كير ليسكوغا آتكنته وضدك أبيكته وقراء كون بير هذا أبيكته أما إيجو برحان آد بيكتو لبضان كوربا تطفيف في بيسوق ليسا طيب دور كاسي ودور كإليه المجتمعات دور كالسلطة أي لا ضحي ومحي دور كالسلطة أي لا ضحي والشعور بالمسؤولية إني أقاته سلطتني إن أي مجتمعا يجب حلك ساريه سينوسو مرين عصورتي هي الدول كي إسلام كها سيدا يقف كريان عافمات كذا كذلك بين وحين أركينا سيدا يقف كريان أيضا الرحاضة صحابة تخطيط استراتيجي بالدولة لها لقرها بأي سلطات إن قرشاء صميا ضدك أمن الغذائي يكون لكرا
tusaale ahaan nabiyullaahi yuusuf ayuu ilaahay qiso qur-aankiisa ku soo qaatay oo inta la xiray xabsigii wuxuu uga soo baxay arrin amnul ghidaa'i ku saabsan oo isaga loogu baahday oo ay tahay ninkii inuu riyooday oo ku riyooday boqorka 7 sac oo buurbuuran oo ay 7 sac caataa cunayaan u fiirs iyo 7 sabul iyaga naftooda waa qiso aad garanaysaan oo macruufa nabiyullaahi yuusuf markii la keenay markiiba wuxuu israaciyay tafsiirka riyada iyo xalkii lagu xalin lahaa markaas wuxuu yidhi qaala tazracuuna 7 siniina da'aban فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون markay culimada ka hadlayaan waxay leeyihiin laba marxalo ayuu u kala qaaday marxalatu takhdiid lil intaaj marxalad wax soo saarka sida loo kobcin karo ayuu cabiray oo u qaybsan khuddatul intaaj iyo muddatul intaaj iyo mustawal intaaj iyo ziyadatul mudakharaat iyo taqyiidul istihlaak afarta u qaybsan oo ah intaajka waxa la soo saarayo khudda in loo sameeyo tazracuuna bi 7 sano abaara ba soo socota 7dan barwaaqada ba soo horeysa waxa looga faa'iideysanaya tazracuun beeraha loo dhaqaaqaya waxba la beeranay kadibna muddatul intaaj waa imisa waa 7 siniin 7 sano oo barwaaqada maalin waa in la beeldaray mustawal intaaj waa da'aban waa joogto habeen iyo maalinba intii la shaqayn karo in la waxaan ku raahday amal joogto in wax lagu beero waxa kamid ah ziyadatul mudakharaat in hadana wax la kaydiyo fama hasabtum fadaruhu fi sunbuli waxa sameeynaya si kaydka kuwa ah uu soo xumaan la miraha hadii la jaro jawaana lagu guro ama wax la mid ah way xumaanaya iyagoo sabuulkoodi ku jira digirtii iyo masangadii iyo wixii la midka ah ayaa la kaydinay تقييد الاستهلاك حدنا وحو قيدي وحا لا cunay illa qalila mimma ta'kulun qaab tasarruf loo cunay maye qaab waxa loo cunaya kooban oo yar oo qof waliba uu baahida uu iska ilaaliyo u dhanka marxaladda labaadna waxay ahayd idaaratu istihlaak nafteeda in la maamulo qaabka waxaan loo cunayo dadka lagu sii day ila 7 sano barwaaqada marka la iska arko wixii ba inta la ilaawo baa la iska bashaqsanay hadhowna wixii baa dambeeya مركز يسميه تقييد وتنظيم الاستهلاك ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم إلا قليل لهن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون كدبنا الاستعداد لإعادة الاستثمار إلا قليلا مما تحسنون أي سبيل هذا كيس مركز استراتيجية هي تخطيط كاستراتيجية وحصلنا هي والسلطة إسلامية إلا نسبه نظام كدولي ماشى كجري وحكلوها لكن مسؤول كان اقتصادي مالي النبي الله يوسف والنبي وفرس وحق ربي قال لك حاجيه قيم كانوا كشقينيه وقيم اسلاميه اركتدان واركتي اسلاميه وحكم ده مسؤوليات قاببك حلك لوغا ربو waxa la yiraahdo dawladaha iyo suldaadka حل المشكلات الغذائية مشكلات غذائية أي مركز دعان الأزمات والمجاعات أبارو إباتوين هي مركز دعان إن إذا نفت هذا الصماية إن وحل حليه ومحاكم ده مثلا حنوصل قادر إنها تصال قصة سنة كسديدي وطبناض لعضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة كلوب هي عام الرمادة وجزيرة العربية أي كد عضي مجاعة أبار يجاجحهم أي أكو هبستي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحيورينا ابن كثير ابن جرير الطبري في التاريخ الكبير وحيلاي وحوشتي يبها الذي ضدك صوم مغانغلي جاجه درته خير ميغي بنانكي بي كسو عرون مغالوينكي عام كودا يمادين ودنك عام الرماد waxa loogu bixiyay dhulkiiba dabas u ekaaday ama dabaysha kacaysa waxay dabayl dabas u ek maaha waxa dhacaya u fiirso Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wa adogtii xigmadiisa ayaa marka umada hogaaminayay markaas uu qorshe samaystay qorshihiisina dhowr qodob ka qaadanayna number 1 tahsiinu tahassus ahwaal الناس
marka koobaad wuxuu bilaabay horta bal dadka xog ururin inuu sameeyo war mushkiladu intee la egta dadka dhibta gaaray dhib intee la eg qodobka labaad markuu dhibtu intee la eg tahay uu soo ogaaday ayuu naftiisa wuxuu ku ilzaamiyay alla yaakula samnan wala saminan hatta yakshifa ma binnas in uusan wax duxle hadduu yahay mid subaga iyo hadduu yahay mid hilibaba inuusan dhadhamin ilaa dadku ay xaaladan ka baxaan kaligii inuusan dhargin isagu heli kara markaasuu wuxuu yidhi hadal macruuf ah kayfa يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم سيديبو إيقصي ضدك تنمدحت النمضو حدي آنا وحا أي دريميان يدبك إيجا جاري وسنانيجا إيجاري معناها وحبابا أمضى أمقى بنكرا حدانا نسكو دون فولي لكن حدانا نسكو دون فولو وباحدو أنو عن دريمو مركاسا وحا ليدي تسوقتي وعلاشي قدتي بمدب كيسي إسبدني حتى قاجو يرفاض أوجه هاي هي الإدارة الناجحة لماذا محادعي وحاول الرباء إنه يستغو نفتيسا وحا دريميس مجتمع أولا نوراض وفرس حسمي قضب كصدحات انت مركب السمي أنفق فيه من حواصل بيت المال مما فيه من الأطعمة والأموال حتى أنفذ وحلا لي وحي كيدها وبيت مالك يا لي ضدك مركب أقيبش أسي انتي نوار المالي ولي مشكلة دي ما بحي حل مركاسو قرار لو وحو كلا ديري رغي مدخدا اها مصر iyo sham iyo maxaan ku raahday meesha la yiraahdo kuufa iyo waxa soo dhan kala xukumay ayuu u diray markaas la soo gaaray amr ibn aas iyo abi musa al-ash'ari iyo sa'd ibn abi waqas iyo abi ubayda iyo kulli intaasoo kun oo ratiba ninkiiba u soo diray oo dhar iyo cunto iyo waxa markaas uu qaybshay انت كما جوجين وحو امري ان لبديو دعاء الله سبحانه وتعالى يا صلاه يا تضرع على صبهم به حضنا انت كما سيدينه استسقاء يا ورب طلب يا الهي سبحانه وتعالى انه ويديسته يا حتى عدي وخير بدي سيد عباس بن عبد المطلب او كلي ان الهي سبحانه وتعالى لبريو الى الهي سبحانه وتعالى مشكلتي وحليه وفرس وحكم ده تعزيز الانتاج المحلي وحاول صوصارك ودنك إلا هجاجي لذلك أيها الأحبة وحنرك إن حديث مجتمع مسلم كاهي وقاطع حضارة الإسلامية وحي أي أقبط مجتمع سكال هدين ودقنه نظام كإسلامي إلا قلت لي إلا وحلو الأمن الغذائي إلهي سبحانه وتعالى سيدي أقبر واقعي وأي أقبر ليستين intii inaga ina ka horeysay xadaarada aan ka sheegnay iyo mas'uuliyadkaas inta ay qaateen ayaan wax badan ka helayna sidoo kale mujtamacana waa inuu darafkiisa qaata xukuumadka iyo maamuladuna waa inay qaataan saas darteed in amni sixiya la helo iyo in amni la helo waxaan ku raahday qidaaiya labaduba waxay ku xiran yihiin mujtamaca iyo ummadaha meesha joogi siday u dadaalaan waana muhiim inaynu mar walba aynu maskaxda ku hayno xadiidka nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yawmi fakannama hizat lahu dunya qofki badqab nooreen hunguri iyo mid caafimaad iyo mid amni guud ba haysta adduunka gacanta ku haya ilaahi subhanahu wa ta'ala adduunka aakhirada hayna asturu jazakumullahu khairan sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi